رمضان كريم أقيارتا سو دوادا muuqaalkeena maanta waxaan ku wadaagi doonaa film Soomaali ah filmkan oo ah film jacayl ah filmka magaciisana waxaa la dhahaa xaaskii xawaalqodaha fadlan waxaan ka codsanayaa kaliya inaad muuqaalka like saartii aad iyo aad ayuu maasan tahay muuqaalkeena maanta wuxuu ku bilaabanayaa dhalinyaradan ay waxay qodaysay god waxayna u diyaarinayeen sidii lagu duugo mayd dhalinyaradii markay qodaan godka waxay ahaayeen kuwo sheekaysto waxaana u sheekeynayay mid ka mid ah dhalinyaradii markay sheekaystaan way soo kala yaacayaan kani waa guuleed wuxuu su'aasanayaa xaafadiisa wuxuuna ka soo gaarsiinayaa xaaskiisa waa hagaag waxaan arkaynaa guuleed oo qoweynayo xaaskiisa wuxuuna ahay qof aad u naxariis badan wuxuuna daryeelay markasto xaaskiisa xaaskiisa waxay ahayd qof xanuunsan guuleed xaaskiisa wuxuu ku leeyahay waxaan aasanayaa tuuladeena laakiin way xanaaqaysaa guuleed xaaskiisa waxayna ku leedahay waad ogtahay tuuladaas halkaa ka taagannahay wuxuu ku leeyahay guuleed tuuladaas waxa uu aasanayo waa adiga caafimaadkaada mana hayo lacag kugu daaweeyo guuleed xaaskiisa wuxuu ku leedahay waxba faa'iido kuguma jirto haddaad tagtid tuuladaas mana ka soo helaysi lacag guuleed wuxuu ku leeyahay xaaskiisa waxay ahayd fikir ugu soo dhacay waana kula wadaagay kaliya waa hagaag maalintii ku xigtay guuleed iyo asxaabtiisa waxay hor fadhiyeen isbitaalka weyn ee magaalada Jabuuti waxaa imaanayso ambalaas guuleed iyo asxaabtiisa waxay ka daba cararayaan ambalaaska markay isbitaalkii gudaha u soo galaan haweeney halkaas joogtay wuxuu ku leedahay qofkaani hadda ma dhimanin markuu dhinto waa la wacayaa ee banaanka u baxa guuleed iyo asxaabtiisa waxa ku adkeeday nolosha waxayna raadsanayeen alyoomkooda guuleed iyo asxaabtiisa waxay leeyihiin maanta ma helin qof dhintay mana qodin qabri waxayna soo jeedinayaan in iskaga tagaan halka laakiin guuleed uu ka duunay dhalinyaradan kale asiga wuxuu rabay xaaskiisa lacag ku daaweeyo waxaan arkaynaa guuleed oo joogo suuqa wuxuu ahay mid xamaali ah haweeney ayuu wuxuu u waday alaab markuu u geeyay alaabta waxay siinaysaa shilimaad yar waxayna kula hadlaysaa af Soomaali aan wanaagsanaynin guuleed wuu iska sabrayaa wuxuuna qaadanayaa shilimaantii yareeday oo la siiyay guuleed asigoo jooga suuqa oo ka raadsanaya istaaqadiisa ayaa wuxuu arkayaa wiilkiisa iyo caruur yar oo isla cararayo guuleed wuxuu ka daba cararayaa wiilkiisa sidoo uu soo raadinayo wuxuu imaanayaa meel duur ah meeshaasiti ayaa waxa joogay wiilkiisa iyo caruurtii kale waxayna halkaasiti ku garaacanayeen cayaar guuleed wuxuu imaanayaa wiilkiisa wuxuuna ku leeyahay ka soo shaqayso cashiradaada xaafadiina qabo waa hagaag maalintii ku xigtay waxaan arkaynaa guuleed iyo asxaabtiisa xawaalqodayaashii oo fadhiyo meel lagu cabo shaah guuleed saaxiibkiisa wuxuu ka helayaa haweeney gado shaaha wuxuuna ahay mid aad fiirinayo guuleed iyo asxaabtiisa waxay fahmayaan wiilkan wax ka qaldan waxayna ku leeyihiin waa soo wada marnay wadadan waa hagaag waxaan arkaynaa guuleed xaaskiisa oo u labisayso wuxuuna ku leeyahay guuleed halkii u soconaa guuleed xaaskiisa wuxuu ku leedahay iska soo keeraac waxaana halkaas ka jiray arooskaas waxaa qabay reer deriska ah oo ah reero dabaqada sare ah guuleed xaaskiisa wuxuu ku leeyahay waxaa la isweydiinayaa invitation card mana haysano laakiin guuleed xaaskiisa waxay ka qaadaysaa geedii u saarnayday garabka waxayna hore u soo qaadanaysaa ari guuleed wuxuu ku leeyahay arigan aniga wuxuu ku leedahay invitation-ka guuleeyeen waa arigan guuleed iyo xaaskiisa wuxuu ku imaanayaan safkii labadii nin ee waardiya ahaay waxayna ku leeyihiin invitation-kiina guuleed xaaskiisa wuxuu ku leedahay waxaan ka soconaa aroosada hooyadeeda waxayna ku leeyihiin waxaan wadnaa arigan invitation-keenana waa arigan nimankii way yaabayaan wayna iska sii daynayaan guuleed iyo xaaskiisa waxay gelayaan gudaha waxaana halkaas ka socotay ciyaaro fara badan guuleed wuxuu arkayaa xaaskiisa oo xanuunsanayso waxayna dareemaysay xanuun waxaa la gaarayaa waqti habeen ah dadkii halkaas joogana waxay u dheelayeen lamaano guuleed iyo xaaskiisa waxay ahaayeen kuwa ciyaaraya laakiin guuleed xaaskiisa waxa ku soo kacayo xanuunka waxayna u dhacaysaa dhulka guuleed sidoo u muujiyo xaaskiisa inay xanuunsanaynin waxay iskula dheelayeen qaab jilba jabsi ah wuxuu ahay mid ka taxadiro xaaskiisa wuxuuna ahay mid ka fikiro kaliya farxadda xaaskiisa waa hagaag waxaan arkaynaa guuleed uu joogo isbitaalka digtoorisadii isbitaalka joogto waxay u sheegaysaa guuleed inay tahay xaaladda xaaskiisa xaalad aad u xun waxayna u sheegaysaa inay keliyaha ka qabto cudurkaasoo ah infekshin ku dhaco keliyaha waxayna u sheegaysaa inay malaxda ku jirto keliyaheeda aad u sii faafayso ee u baahan tahay qaliin in lagu sameeyo keliyaheeda guuleed wuxuu ku leeyahay xaaladda ku jiro cidna ma fahmi karto mana haysto lacag waxaana la ahay waxaan cunno digtoorisadii waxay ku leedahay waan ku caawinayaa sidaan ku caawi karo waxaan hadda kuu qorayaa daawooyin antibiyootig ah hadday daawooyinkaas wax iska bedeli waayaanne waa inaad geysaa Itoobiya halkaa ma joogo dhakhtar ku fiican qaliinka guuleed asigoo niyad-jabsan ayuu wuxuu kasoo tegayaa cisbitaalka guuleed wuxuu ahay mid dhaqo dharka xaaskiisa waa hagaag waxaan arkaynaa guuleed iyo asxaabtiisa oo ah shaqo la'aan waxayna u dheelayaan halkaasiti cayaar guuleed
wuxuu imaanayaa meel ay ka socotay dhismihii wuxuu ku leeyahay injineerkii joogay waxaan rabaa shaqo laakiin cidna lama hadlayso. Guuleed wuxuu ku soo noqonayaa gurigiisa wuxuuna u imaanayaa xaaskiisa wuxuu u sheegayaa inuu soo waayay shaqo. Guuleed xaaskiisa waxay ahayd qof u dhisto niyadda Guuleed waxayna ku leedahay waad ogtahay qorshooyinkii aan lahaynay waxayna ku leedahay waxaan rabnay inaan samaysano ganacsiyo aad u waaweyn waxayna ku leedahay weli ma quusanin mana nii jebin maalin maalmaha ka mid ah waxaan samaysan doonaa ganacsiyo noloshaanne waan ka bixi doonaa. Guuleed xaaskiisa wuxuu ku leedahay waxaa rabaa inay ballan qaadi inaan labadeena abid aan wada jirno dhibaato walbane waan ka bixaynaa haddii aan isgarabsano. wuxuu ku leedahay waan ogahay inay fududeynin laakiin waxay u baahan tahay dadaal. Guuleed xaaskiisa wuxuu ku leeyahay ma qaajoonaysaa wuxuu ku leedahay haa waxaan kaaga soo tuuraya ayuu leeyahay cunno aan caadi ahaynin. waa hagaag waxaan arkaynaa Guuleed oo wadada socdo wuxuuna u socday iskuulka wiilkiisa. Guuleed wuxuu soo gaarayaa iskuulkii waxayna isla wada hadlayaan macalinka iskuulka dhigay. Guuleed wuxuu arkayaa wiilkiisa inuuna maanta imaanin xisada. waxaan arkaynaa Guuleed wiilkiisa Mahad iyo wiilal kale oo joogo wadada tareenka waxayna ahaayeen kuwo isdagaalo. waa hagaag waxaan arkaynaa Mahad oo hooyadiisa canaananayso. waxaa xilligaas soo galayo Guuleed wuxuuna ku leeyahay labadii isbuuc ma aasanin iskuul maxaa kugu dhacay. Guuleed xaaskiisa wuxuu ku leedahay aniga ayaa la hadlayo ee ii joog. laakiin wiilkii yaraa ee Mahad wuxuu ku leeyahay maxay canaanatiin labadiina waxba ma soo baranin waxaana tahdin laba qofood aan wax qorin waxaan aqrinin wuxuuna iskaga cararayaa halkaas. Guuleed iyo xaaskiisa waxay ahaayeen guni jabsan. waa hagaag waxaan arkaynaa maalintii ku xigtay Guuleed iyo asxaabtiisa oo sida caadadaheeda shaah ka cawayo naagtii shaaleyda aheeda. Guuleed saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay noloshan waan ku dhibaatooda saaxiib wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa inaa iibsado dameer ama sac ku shaqaysto. Guuleed wuxuu ku leeyahay saaxiib waxaan ahay aniga 40 jir waxaana ugaarsadaa miidka waxa ii joogto xaas xanuunsan dhimashana qarku u saaran sidoo kale waxaan leeyahay wiil igaga baahan waxbarasho nolosha maahan inaa iska deetid waan ogahay haddii aa lahaa laheedin xaas in nolosha sidan kaaga dhib badnaa laheedin. wuxuuna ku leeyahay wax kasta waxay yeeshaan wado waana ku fahmi karaa saaxiib macaan. wuxuuna u wacayaa gabartii la dhahay Sacdiyo oo gadaysay shaaha. Guuleed markii u timaado gabartii shaaha gadaysay wuxuu ku leeyahay waxaa kaa helay saaxiibkayga wuxuuna rabaa inuu kula sheekaysto. gabartii wuxuu ku leedahay hadda jaanis ma hayo laakiin waan u soo noqonayaa. Guuleed saaxiibkiisu wuxuu ku leeyahay howsha dhankayga waa dhameeyey ee waxaa kaa dhiman dhankaaga ee howsha soo kala tuur. Guuleed wuxuu ahay mid shaqo la'aan ah wuxuuna raadsanayay shilimaadkiisa. Guuleed wuxuu soo aasanayaa xaafadda. markuu xaafadda imaado wuxuu u imaanayaa xaaskiisa oo ah qof dhima rabto waxayna ahayd qof aad u xanuunsan. Guuleed xaaskiisa wuxuu u soo kaxeynayaa cisbitaalka wuxuuna markale la kulmayaa doctoreysada. doctoreysada wuxuu ku leedahay waxa ku haya laba arrimood mid farxad leh iyo mid murugo leh. doctoreysadii Guuleed wuxuu ku leedahay halkan waxaa imaado oo booqasho u imaaday dhakhtar ku fiican qalitaanka. waxay ku leedahay kaas wuxuu ahay warka fiican warka xunna wuxuu yahay qalitaanka inuu yahay lacag. waxayna ku leedahay xaaskaaga haddii kelida laga daawey waayo way u dhimanaysaa kordhow. waxayna ku leedahay lacagta qalitaanka layska rabo waa 5. Guuleed wuxuu dareemayaa xanuun aad u fara badan. Guuleed xaaskiisa wuxuu u soo kaxeynayaa cisbitaalka gaari gacan mana haysan gaari mana haysan lacag oo gaari ku kiraysto. Guuleed xaaskiisa wuxuu keenayaa iyadoo xanuunsan guriga wuxuuna ahay qof xambaarsan xaaskiisa mana u muujineen hal waqti isla weynin xaaskiisa. Guuleed xaaskiisa wuxuu soo raadinayaa lacag wuxuuna imaanayaa dukaan weyn oo ku yaalo magaalada wuxuuna leeyahay gabartii joogta halkaasiti waxaan rabaa Axmed. haweenaydii halkaas joogtay waxay u wacaysaa Axmed. Axmed wuxuu ku leeyahay ma rabo ninkaan inaan arko wuxuuna ogaay inuu ka rabo lacag. gabartii wuxuu ku soo noqonaysaa Guuleed waxayna ku leedahay Axmed ma joogo. Guuleed wuxuu leeyahay Axmed walaal waan ku arkaa. Guuleed wuxuu leeyahay aniga waa ku caawi lahay haddii ku haysto dhibaato maanta waxay haysto dhibaato ee caabi. Axmed ma ahayn qof u jawaabayo wuxuuna iska dhigayay qof maqan. waxaan arkaynaa wiilkii yaraay oo la dhahay Mahad oo la dareemaya hooyadiisa xanuun. dhanka kale Guuleed ma ahayn qof joojiyo inuu soo raadsado lacag uu ku daaweeyo xaaskiisa wuxuuna u imaanayaa raggu isleeyahay waxay haystaan lacag. Guuleed wuxuu u imaanayaa nin wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa lacag laakiin ninkii wuxuu leeyahay saaxiib waxba ma hayo jeebka yaa maran waan ku caawi lahay laakiin hadda waxba ma haysto. Guuleed wuxuu imaanayaa meel bangi ah wuxuuna sugayay inta la soo firaaqaynayo meeshas bangiga ah. Guuleed wuxuu gudaha u galayaa bangiga wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa lacag. ninkii bangiga ka shaqaynayay Guuleed uma jawaabayo. Guuleedna wuxuu soo qaadanayaa dhagax aad u weyn. ninkii bangiga ka shaqaynayay wuxuu ku leeyahay waxaan ku wacayaa booliiska. Guuleedna wuxuu dareemayaa cabsi wuxuuna iskaga soo tegayaa halkaas. waa hagaag maalintii ku xigtay Guuleed iyo asxaabtiisa waxay wadeen meet. Guuleedna wuxuu ahay qof maqani jooga ah wuxuuna ka fikirsanay sida uu heli lahay lacag $5,000 ah. Guuleed iyo asxaabtiisa waxay qodayeen qabriga markay dhameeyaan waxay soo raacay Guuleed iyo saaxiibkiisa. Guuleed saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay wejigaada waxa ka muuqata saaxiib farxad. Guuleed saaxiibkiisa wuxuu u sheegayaa inay isfahmeen gabartii shaaha gadaysay wuxuuna ku leeyahay arrinteenu way noo dhamaatay waxaana ku heshiinay guur. Guuleed wuxuu u hambaleynayaa saaxiibkiisa. Guuleed saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay saaxiib waxaan iska ahay qof fulay ah arrinteeda waa ii dhamaysay waxaana jeclahay arrintaada inay saas Ilaahay kuugu dhameeyo. Guuleed saaxiibkiisa Guuleed wuxuu siinayaa lacag wuxuuna leeyahay intaan waxaas ka soo aruurin aniga iyo asxaabta waan inta awoodnay waan ogaa inay lacag ahayn. Guuleed wuxuu ku leeyahay mahadsanid intaan agteeda waxay ka tahay lacag aad u fara
badan. Guuleed iyo saaxiibkiisa waxay isku macsalaameynayaan halkaas. Guuleed wuxuu imaanayaa xaafadiisa, waxaana halkaas joogtay xaaskiisa oo dareemaysay xanuun aad u fara badan. sidoo kale Guuleed wuxuu la dareemayaa xaaskiisa xanuunka, mana ahayn qof wax u qaban karo xilliga. Guuleed wuu soo baxayaa, wuxuuna u imaanayaa wiilkiisa Mahad oo la ciyaarayo caruur. wuxuu ku leeyahay kaala aabe, waxaan rabaa inaan kula hadlo. waxayna iskugu soo baxayaan meel gooni ah. Guuleed wiilkiisa Mahad wuxuu u sheegayaa xaaladda hooyadiisa, wuxuuna ku leeyahay hooyadaa way dhimanaysaa, lacaga ku badbaadiyeyna ma hayo. wuxuu ku leeyahay waxaan tegayaa tuulada reerkayaga sidaa u weydiisto caawinaad. wuxuu ku leeyahay hooyadaa la joog. waxaa la ballamay sidoo kale Sacdiya oo ah naagta deriskooda ah. wuxuuna ku leeyahay adiga ayaa ah wiilkeeda, waxay kaaga baahan tahay garab iyo agjoogis. agjoogaagani wax weyn ayuu ka yahay agteeda. Guuleed wiilkiisa Mahad wuxuu siinayaa lacagtii oo ka haystay xil iyo xoolo. wuxuuna ku leeyahay intan ayaa ka haya lacag. wuxuuna ku leeyahay waan soo naqanayaa, haddaa ii weysina iska dhig nin adag oo hooyadiisa ka bixiyo xaaladday ku jirto. waxaa halkaas kaaga tegaya Guuleed. Mahad wuxuu u imaanayaa hooyadiisa, wuxuuna tusayaa hooyadiisa inuu yahay garabkeeda. waa hagaag waxaan arkaynaa Guuleed oo lugeynayo wadada. Guuleed waxaa ku adkeeday xaaladda, mana haysanin lacag oo ku raaco gaari. Guuleed wuxuu isku dayayaa gaariisu ag marayo inuu istaajiyo, laakiin gaarigii wuu ka tegayaa. Guuleed waxaa ka go'ayo kabihiisa, wuxuuna soo gaarayaa xaafad yar oo ku taalo halkan. Guuleed xaafadii gabartii joogto ayuu wuxuu ku leeyahay caabi. wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa inay igu caawisi kab. Guuleed waxaa lasoo siinayaa kabaha dumarka. Guuleed kabihii wuu isticmaali weynayaa, wuuna iska tuurayaa. waa hagaag waxaan arkaynaa dhanka kale Guuleed wiilkiisa Mahad oo bilaabay shaqo, wuxuuna ahay mid dhaqo gawaarida, asigoo kasoo raadinayo shilimaad ay ku noolaadaan asiga iyo hooyadiisa. dhanka kale waxaan arkaynaa Guuleed oo ku xumaatay xaaladda, waxaana cagihiisa kasoo gaaray dhaawac. Guuleed wiilkiisa Mahad sida caadadiisa ah wuxuu sii watay shaqadiisa, wuxuuna ahay mid raro gawaarida, wuxuuna halkaas kasoo helayaa lacag yar oo ku filan asiga iyo hooyadiisa. waxaan arkaynaa mar kale Guuleed oo ku lugeynayo meel aad u qalalan, wuxuuna ahay qof daalan oo ka muuqday haraad. Guuleed haweeney raacaysa geel ayaa waxay siinayso biyo, waxayna u tilmaamaysaa meeshay ka jirto tuuladuu rabo. Guuleed wiilkiisa Mahad wuxuu ahay mid u karinayo cunnada hooyadiisa. Mahad hooyadiisa waxay aheeday mid ku qosasho wiilkeeda, waxayna ugu yaabaneeday sida ugu cabsoonayo dabka. Guuleed habeenkii wuxuu soo gaarayaa reer milishaan ah, waxayna ahaayeen kuwa soo dhaweeyo reerkan. Guuleed waxay weydiinayaan reerkan maxaa ka doonaysaa baadiyaha. sidoo kale Guuleed wuxuu u sheegayaa inuu asiga rabo inuu soo gato xoolihiisa, wuxuuna ku leeyahay waxaan rabaa xoolahayga inaan geeyo Jabuuti aan iibsado. haweeney halkaas joogtay Guuleed wuxuu ku leedahay ma xoolahaadoo dhan ayaa rabtaa inaa iibsatid. Guuleed wuxuu ku leeyahay haa, waxaan rabaa inaa iibsado xoolahaygoo dhan. waa hagaag waxaan arkaynaa Mahad iyo hooyadiisa oo sheekaysanayo. hooyadiisa Mahad wuxuu ku leedahay cuntadaada aad ayuu u maceeday hooyo. sidoo kale Mahad wuxuu ku leedahay hooyadiisa ma samaysatay gabar saaxiib kulo ah. Mahad hooyadiisa wuxuu ugu jawaabayaa hooyo anigu waa yarahay, daadaasna ma gaarin. Mahad hooyadiisa wuxuu ku leedahay aniga iyo aabahaaga waxaan isbaranay adiga camal markaa aheene, wax saasayna kaama weyneynin. Mahad wuxuu ku leeyahay weligaa igama sheekeenin sidaas ku barateen aabahayga iyo adiga. Mahad hooyadiisa wuxuu ku leedahay hooyo yaa ku arko maalintii oo dhan waa maqan tahay, waxaa timaada habeenkii, waqtigaan ku sheekaysanana weligeen maan helin. waxayna u bilaabaysaa qisada Guuleed iyo xaaskiisa, waxayna ku leedahay aabaha iyo aniga waxaa ka wada imaanay laba tuulo, laakiin ugu dambeyntii waxaa soo wada degnay hal meel oo ah meel kaam ah. Mahad hooyadiisa wuxuu ku leedahay aabaha aad ay u necbahay bilaawgiisa, wuxuu weydiinayaa sababta u necbahay. waxayna ku leedahay waxaan u necbahay dhalinyarada intuu kasoo dhex baxo ayuu keligiisa intuu meel fadhiisto ayuu ifiiri jiray xilli walba. wuxuu ku leedahay galab galbaha ka mid ah anigoo biga jambigiisa fadhiyo ayuu wuxuu u yimaaday Guuleed, waxaan ahay qof caraysan oo ooynayo. isla nuuca sheekadan Guuleed wuxuu ugu sheekaynayay reerkii, waxayna weydiinayaan reerkii wixii la oynaysay xaaskiisa. wuxuuna ku leeyahay reerkeeda waxay rabeen inay ku daraan nin weyn oo ah nin oday ah. Guuleed sidoo kale hooyadiisa ayaa waxay u waday dhankiisa sheekada, wuxuuna ku leedahay wuxuuna igu dhahay dhammaadka waan ku jeclahay waana kaa helay. waxay ku leedahay sidoo kale waxaan u sheegay qorshaha aabahayga ila damacsan yahay. Guuleed wuxuu u fikiray si wanaagsan, wuxuuna ahay qof degan, wuxuuna la yimid qorshahaas oo ah inaan u baxsano Jabuuti oo isku aroosano halkaasiiti, aan halkaas ka bilaabno nolol cusub. labadeennana waxaan ahaynay laba qafood oo necib familkooda. Mahad hooyadiisa wuxuu weydiinayaa su'aal, wuxuuna ku leeyahay ma ku weydii karaa su'aal? haa ayay ku leedahay. wuxuuna weydiinayaa sidee ku aamintay Guuleed oo ah asiga aabihiisa. waxayna ku leedahay wuxuu ahay qof aad u wanaagsan, wuxuuna ahay qof bilaadanimada ku fiican, wuxuuna ahay qof la aamini karo. Mahad hooyadiisa inta u wata sheekada waxaa la tegayso hurdada. Mahadna wuxuu u toosinayaa marada. Guuleed wuxuu soo gaarayaa ugu dambeyntii tuuladiisa. dadkii tuulada jooga waxay ahaayeen kuwa la yaaban. Guuleed waxaa soo kaxaynayo walaalkiisa oo ku arigay wadada, waxaa loo keenayaa hooyadiisa. Guuleed wuxuu salaamayaa hooyadiisa, iyadana ma ahayn qof ka qaado salaanta, waxay ahayd qof u caraysan Guuleed hooyadiisa marka ugu dambeyso way la hadlaysaa, waxayna ku leedahay maxaa soo doontay oo kasoo doontay halkan. Guuleed wuxuu leeyahay waxaa soo doontay xoolahayga, laakiin Guuleed hooyadiisa waxay ku leedahay xoolahaaga adiga ayaa iskaaga tegay. Guuleed wuxuu ku leeyahay xoolahayga iskaagama tegin ee waxaa u dhiibtay walaalkayga, laakiin Guuleed hooyadiisa waxay ku leedahay waa iskaaga tagtay xoolahaaga. waxayna ku leedahay xoolahaaga waxaa qaatay walaalkaaga, waxaana ka maqneeday sanado aad u fara badan. waxayna ku leedahay wax xoolo ah kuma lihid hadda halkan. Guuleed hooyadiisa wuxuu ku leedahay asiga ayaa dhaqanayay xoolihiisa, waxayna ku leedahay adiga waa ka dan sheegatay waxbana kuma lihid
xoolahaasiiti. Guuleed wuxuu u imaanayaa walaalkiisa wuxuuna ku leeyahay xoolahana la joogtay waxaan ahay ninka iskale waxaan rabaa xoolahayga inaan qaato. Guuleed iyo walaalkiisa waxaa lasoo wada fadhiisanayaa geed waxaana garta loo qaadaya geed hoostiisa. waxaan halkaas joogeen odayaasha xaafadda. odayaashii xaafaddii way tashanayaan waxaana soo istaagayo odayga duqa magaalada xaafadan wuxuuna ku leeyahay Guuleed waxba kuma lihid halkan xoolahaaga waa ka tag waxaana ka maqneeday sanado fara badan. Guuleed markii la go'aamiyo walaalkiisa ayuu qabanaya wuxuuna ku leeyahay xaaskayga ayaa dhimanayso waxaana kaaga baahanahay caawinaad waa inay siisaa xoolaha sidaan ugu daaweysto xaaskayga. laakiin walaalkiisa wuxuu ahay qof xanaaqsan wuxuuna iskaga tegayaa halkaas. waxaan arkaynaa Mahadyare oo soo cararayo wuxuuna imaanayaa cisbitaalka wuxuu imaanayaa dhakhtaradii wuxuu ku leedahay aabahaaga wuxuu ku leeyahay Mahad wuu maqan yahay aabahayga wuxuuna jiraa tuuladeena waxay ku leedahay ma ii wici kartaa wuxuu ku leeyahay aabahayga ma laho taleefan. digtooreysadii waxay la soo tashanaysaa digtooreyso kale waxaan halkaas ku dhageysanayay Mahadyare. digtooreysadii waxay ku leedahay digtooreysadii kale ma caawi karno dadkaaniiti qaliinkuna waa lacag aad u fara badan. waxaasoo dhan maqlayay Mahadyare uu ku sugayay banaanka. Mahadyare digtooreysadii wuxuu ku leeyahay waxaan hayaa lacag yar hooyadeyda ma lagu daaweyn karaa. waxaan arkaynaa Guuleed oo fadhiyo meel oo oynayo waxaana wejigiisa ka muuqatay murugo aad u fara badan wuxuuna ahay qof ku guuldareystay nolosha. xili saqa dhaxa ah Guuleed walaalkiisa wuxuu arkayaa xoolihii oo ka maqan moorada wuxuuna isku wacayaa deriskii wuxuuna ku leeyahay isku soo baxa waa la isku yimide. waxaan arkaynaa Guuleed oo la baxsaday xoolihii wuxuuna ahay mid sii kaxaysto xoolihii. dhanka kale waxa qalin lagu sameynayay Guuleed xaaskiisa. Guuleed walaalkiisa wuxuu soo wadanaya rag kale waxayna raadinayeen Guuleed raadkiisa. ugu dambeyntii sidii u soo raadinayeen Guuleed waxay ka arkayaan meel kore Guuleed oo sii wato xoolihii. Guuleed wuxuu arkayaa raggii oo ku soo socdo waxayna la naqanaysaa mid la yaab leh. Guuleed waxaa qabanayo raggii waxayna ku garaacayaan halkaasiiti. Guuleed wuxuu gelayaa inta la garaacay xasuus wuxuuna soo xasuusanayaa xaaskiisa. waxaan arkaynaa Guuleed oo loo galay si xun waxaana loo dilay si aan caadi ahayn. Mahadyare iyo naagtii deriska waxay wada sugayeen jawaabta qaliinka. digtooreysadii waxay ku leedahay qalitaanku waa ku guuleysanay nasrana way badbaaday. digtooreysadii waxay ku leedahay Mahad aabe xafiiska ay ku yimaado markuu ka soo noqdo tuulada. digtooreysadii waxay ahayd qof caawiso familkan waxayna ahayd qof jeebkeed ka bixiso lacagta qaliinka. Guuleed wuxuu ahay qof dilan wuxuuna ahay qof aad u xanuunsan. Guuleed wuxuu isku dayayay inuu gaaro jidka ee maraan gabaarida wuxuuna ku socday xabadka. Mahadyare wuxuu sugayay aabihiisa wuxuuna saarnaa geed. Guuleed waxaa soo qaadaya ugu dambeyntii gaari wuxuuna u soo qaadayaa magaalada. Mahadyare asxaabtiisa waxay leeyihiin kaale nala ciyaar kubadda. Guuleed waxaa la soo saarayaa gaari ka go'an gadaal. Guuleed wuxuu soo agmarayaa caruurtii meesha ku ciyaaraysay kubadda waxaana kubaddooda ku soo dhacaysaa Guuleed meesha ku jiray. Mahad oo ah Guuleed wiilkiisa iyo caruurtii kale waxay soo ceersanayaan gaariga. ninkii gaarigii wadane wuxuu dhaafinayaa xaafadda deganaayeen Guuleed. caruurtiina waxay ahaayeen kuwa ceersanayo gaariga waxayna ka rabeen kubadda ka dhex gashay halkaas. filimkeena maanta wuxuu ku dhamaaday halkaas intaa